waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah madaxda ugu sareysa dalka oo dardar ku bilaabeen kulamada ku saabsan magacaabista wasiirada cusub midowga Afrika oo bila kadib khasab ku aqbalay eerintii Mandela soona magacaabaya ergey cusub iyo weerarkii Israel, Britain iyo Faransiiska ku qaadeen kanaalka Suez ee uu Mareykanku fashiliyay maxaad kala socotaa daawade qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janaalka fadlan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada janaalka Hubaal News ka hela wararka joogtada aan ku bayno aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkan oo si share gareeya asxaabtiina laagtiina way noo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa saacadii ugu dambeeyay kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahan safar dibadda dalka uga maqnaa Ra'iisul Wasaaraha oo wali ku guda jira kulamadiisa wada tashiyada ee la xiriira dhismaha xukuumaddiisa ayaa madaxweynaha uga xog waramay halka ay mareyso howshiisa xulashada gol wasiirada ee laga sugayo inuu ku dhawaaqo Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaana marar badan ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh Soomaaliyana samata bixin karta kana jawaabta arrimaha mudnaanta u leh horumarinta bulshada Soomaaliyeed Xamza Barre ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay sameynayay kulamadii ugu badnaa isagoo la tashiye la yeeshay dhinacyada culimada warbaahinta ganacsatada dhalinyarada iyo dhammaan iyo dhinac kasta oo talo uu ku tumayay kulamadan ayaana xoogeystay kadib markii uu Ra'iisul Wasaaruhu baarlamaanka ka codsaday 10 cisho oo dheeraada inay siiyaan si uu si wado la tashiyadiisa ku aadan dhismaha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talo iyo tusaaleyn badan ku leh dhismaha xukuumadda taas oo muhiim ka dhigaysa kulankan uu Ra'iisul Wasaaruhu la qaatay muddada 10 maalmood ee Xamza Cabdi Barre uu codsaday ayaana ku eg 4 bisha soo socotay Agoosto waxaana la filayaa in bilowga bishaas uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada balse dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa dardargelinaya howsha kaga aadan magacaabista golaha wasiirada waxaana saacadii ugu dambeeyay uu siyaabooyin kala duwan u qaabilay xubno daneynaya xilalka wasiirada Soomaaliya dhinaca kalena Rooble guul weyn ayuu ka gaaray midowga Afrika kadib markii uu ku khasbay inay soo magacaabaan wakiil cusub ururka midowga Afrika ayaa u muuqda in uu bila kadib ugu dambeyn aqbalay eerintii uu Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku sameeyay wakiilkii ururka Soomaaliya ee Faransiiska Mandela Rooble ayaa qoraal uu soo saaray 7 Abriil 2022 wuxuu dalka uga eriyay danjira Faransiiska Mandela isagoona sheegay in dowladda Soomaaliya ay u aqoonsatay shakhsi aan dalkan laga rabin kadib markii uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shakhsiyadiisa haase yeeshee waxaa ceerintaasi ka hor yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo kadibna gudoomiyaha guddiga midowga Afrika uu sheegay in ay qaadanayaan go'aanka Farmaajo ah inaan dalka laga ceerin danjira Faransiiska Mandela balse isku daygii Farmaajo iyo waliba gudoomiyahaasi ayaa labadaba shaqeyn iyada oo wasaaradda amnigana ay diiday inuu dalka soo galo Mandela warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska Africa Intelligence ayaa waxaa lagu sheegay in gudoomiyaha midowga Afrika Moussa Faki Mahamed uu had qorsheynayo in wakiilka ururka iyo midowga howlgalka ADMIS uu soo magacaabo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Cameroon Mohamed Al-Amin Zouf Master Al-Amin oo ah 59 jir ayaa 2011 ilaa 15 soo ahaa madaxa howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee gobolka Darfur ee dalka Suudaan waxa uu sidoo kale 2015 ilaa 17 madax ka ahaa howlgalka qaramada midoobay ee waqooyiga dalka Mali hadii si rasmi ah loo magacaabo Master Al-Amin ayaa Soomaaliya imaanaya xilli isbedel weyn lagu sameeyay howlgalka midowga Afrika kaas bishii Maaj loo bixiyay magaca ADMIS ayaa howlgal ku meel gaar ah ujeedkiisu yahay inuu dowladda federaalka kala shaqeeyo sidii ay ula wareegi lahayd amniga dalka iyadoo la bilaabayo qorshe si tartiib ah loogu yareynayo 20,000 oo askari oo Afrikaan ah oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya wahagaagi daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa Mareykanku waxa uu fashiliyay weerar ay qaadeen Israel, Britain iyo Faransa
taariikhdu markii ay ku beegnay 29 bishii Oktoobar 1956 ciidamada Israa'iil ayaa bilaabeen howlgal lagu magacaabo Musketeer oo ay ku qaadeen Saxaraha Sinai. ujeedada weerarka Israa'iil waxa uu ahaa inay qabsadaan kanaalka Suez ee marinbiyoodka waa maraakiibta isku xira inta u dhaxaysa Mediterranean-ka, Badda Cas iyo Masar. dowladda Masar ayaana kanaalka Suez u aragta muhiimad qaran oo lama taabtaan. howlgalkaasi Musketeer waxaa hoggaan u ahaa generaal u dhashay Britain. markii hore waxa uu qorshe u ahaa in weerarkan ay si wadajir ah u fuliyaan Britain, Faransa oo wehelinayaan Israa'iil, balse Israa'iil kaligeed ayaa bilowday 29 bishii Oktoobar. Sir Anthony Eden oo ahaa ra'iisul wasaarihii Britain ee xilligaasi ayaa markii dambe sheegay inuusan ka warqabin weerarkan hore ee Israa'iil. ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil dhankiisa ayaa taliyay ciidankiisa ku amray in uu qorsheeyo weerar lagu qaado Masar. subaxnimadii 29 Oktoobar 1956 weerarka Israa'iil waxa uu hogaaminayay diyaarad si loola wareego marinka Saxaraha Sinai. dagaal culus ayaa ka dhex qarxay militariga Masar iyo ciidamada Israa'iil. maalintii xigtay Britain iyo Faransa ayaa soo saareen amar ay labada dhinac ku siinayaan inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda. Israa'iil waxa ay sii wada howlgalka iyadoo Masar ka rajeynaysay inay sameynayso weerar celin, hase yeeshee si ka duwan filashadii Israa'iil. madaxweynihii Masar ee xilligaasi Jamaal Cabdi Naasir ayaa ku amray ciidankiisa inay dib u gurasho sameeyaan. markii uu madaxweynaha Jamaal diiday inuu u hoggaansamo dalabkii Britain iyo Faransa, xulafadu waxay bilaabeen duqeymo ay ku xakameynayaan ciidamada cirka ee Masar. guuta kamid ah ciidamada Britain ayaana la wareegeen garoonkii ciidamada cirka ee Al Jamil, halka ciidamada Faransiiskana ay qabsadeen dekedda Vaad 5 November oo ku beegneed qiyaastii 3 bil kadib. markii uu Naasir qarameeyay kanaalkan waxaa soo weeraray Britain iyo Faransiiska. waxay weerarkooda ku bilaabeen duqeymo bambaanooyin loo adeegsaday, kuwaasoo ciidamada cirka Masar ku kaliftay inay dhulka joogaan muddo 45 daqiiqo gudahooda. guud ahaan iska caabintii dhinaca cirka ee Masar waa looga adkaaday. ciidanka badda Britain ayaana u fududaatay inay diyaaradaha kumaatiga u kac saanad iyo raashin ku gaarsiiyaan ciidamadooda, maadaama saldhigga ciidamada cirka ee Al Jamil la qabsaday. ciidamada dalaayadaha kubooda ee Britain waxa ay u dhaqaaqeen dhinaca bari ee dekedda Saciid, iyagoona sii wajahayay iska horimaad culus oo ku qabsaday wadada. caawinaada ay ka heleen dhinaca hawada awgeeda waxa ay ka adkaadeen ciidamadii Masaarida. haddaba sidee loo joojiyay ciidamadii ka adkaaday militariga Masar? 6 bishii November xeebaha Masar waxa weerar xoog leh ku soo qaaday maraakiib dagaal oo xambaarsanaa taangiye iyo diyaaradaha kumaatiga u kac. waxaa kaloo weelinaya ciidamada Faransiiska. durbadiiba waxaa la jabiyay militariga Masar. isla maalintaasi habeenkii ayuu xogayay qaramada midoobay ee xilligaasi codsaday in xabad joojin la sameeyo. ciidamada Britain iyo Faransiiska tallaabadoodu xigta waxay ahayd inay isku dayaan la wareegista guud ahaan kanaalka Suez, balse waa la joojiyay. sida laga soo xigtay qowra military oo si aad ah ugu kuurgalaya arrintaasi, howlgalka xulafada la safneed ee Israa'iil wuxuu hayay wadada guul taariikhiya. laakiin marka laga eego siyaasadda caalamiga, Britain waxay qaaday tallaabo qaldan. sidaasi awgeedna weerarkan oo ahaa guul dhanka militariga laga gaaray waxa uu dhanka kale sababay in la bahdilo Britain, maadaama Mareykanku uu diiday inuu taageero Britain. maxaa dhacay? waqtigaasi Mareykanka oo la xifaaltamayay midoogii Sovieti waxa ay isku dayeen inuu hormuud ka noqdo hanaanka wadamada gumeysiga ku jiray ee xornimada ku gaari lahaayeen. siyaasad ahaan Britain waxa ay ku guuldareysatay go'aankan ay ku qaaday in ay qabsato kanaalka Suez. madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaas ayaana si aad ah uga carooday weerarka Britain ay ku qaaday Masar. waxaa kaloo soo baxayay warar sheegaya in gudaha Britain xitaa ay ka jirtay caro ay dadweynuhu ka qabeen tallaabadaasi. dibadbaxyo badan ayaa ka socday magaalada caasimadda London. Britain dhowr sano ka hor xilligaasi ayay ka soo baxday dagaalkii labaad ee adduunka, kaasoo dhaqaalaheedu u horseeday hoos u dhac sababay xasarado badan. lacagta ganiga ayaana aad u qiimo beeshay, shaqo la'aanta way sii kordhaysay. xaaladaasi markii ay taagneed, Mareykanka ayaa lagu tilmaamayay inuu yahay dalka ku fiican xulashada dagaalka uu galayo. midoogii Sovieti ee uu hogaaminayo Ruushka ayaana ku hanjabeen
inuu ku biiri doono dagaalka isagoo garab siinaya Masar si uu hor istaago isfidinta kale ciidamada xulafada ah ee Britain iyo Faransiiska oo damacsan inay gacanta ku dhigaan kanaalka Suez. Xaaladuna ay sii cakirantay hanjabaada Ruushka kadib ayuu madaxweynihii Mareykanka ku amray Britain iyo Faransiiskuba inay si degdeg ah militarigooda ula baxaan. Halkaas ayuuna ku soo afjarmay dagaalkii qalqalka geliyay marin biyoodka muhiimka u ah caalamka ee Suez. guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii oo aad kala socoteen Global News. Fadlan nagu soo bir oo channelkan ka mid noqo saaxiibada ku xiran ee ka hela wararkan ku baahino aragtidaada halka hoose noogu reeb muuqaalkan inaad usii share gareyso asxaabtaada naga hilmaamin laagtaadana waa inoo muhiim. waana ku maasantahay daawashada iyo la socodka warka channelka Global News.